halkani waa Faraj TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyga ay Soomaalidu degto kuwooda ugu muhiimsan. qodobada ugu doorkaraan wararka aan idin haynana waxaa ka mid ah hal rijminti oo liyu boolis ah iyo maleeshiyadii lagu soo xareeyay degmada Burqod ee laga soo ururiyay dhammaan degmooyinka deegaanka oo u goostay duurka Garigo'an halkaasna ku arrinsanaya. Itoobiya oo bilowday buuxinta wejiga labaad ee biyo xidheenka iyo Masar iyo Suudaan oo hanjabaado kulul ka soo saaray. fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe sar, videoga like sar oo share dheh si aad ula wadaagto asxaabtaada. wixii kala bixinana xagga hoose nagu reeb. ku soo dhawaada qodobadii wararka oo faahfaahsan. wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwo Yusuf. liyu booliskii Burqod iyo maleeshiyadii laga soo ururiyay degmooyinka deegaanka laguna soo xareeyay Burqod ayaa naloo xaqiijiyay inay u goosteen duurka Garigo'an iyagoo halkaas barkulan ku yeelanaya. ciidankan oo tiradoodu kor dhaafayso 2,000 oo askari ayaa waxaa hogaaminaya hal korneyl iyo 3 shaqale. ujeedka ay ciidankani u goosteen ee ay duurka Garigo'an u galeen una kaxaysteen maleeshiyadii laga soo xareeyay dhammaan degmooyinka deegaanka ayaana loogu sheegay inay tahay inay deegaanka badbaadiyaan oo dadka iyo deegaanka ay naftooda u soo hureen aysan maanta aqbali karin in iyaga iyo dadkoodiiba lasii dulaysto. maantana ay tahay maalin ay in badan sugayeen. dhanka kale waxaa ku ladan goosashada iyo gadoodka ciidanka dayac iyo darxumo ay xukuumadda Mustafa Cagjar baday oo hub, cunno, dawo, saad iyo rasaas la'aan intaba ah. haddaba ciidankii maleeshiyada ahaa ee laga soo ururiyay degmooyinka deegaanka ee sida khasabka ah loogu soo xareeyay xerada tababarada ciidanka ee Burqod ayaa dhammaantood kadib markay damceen inay ooda jabiyaan oo ay degmooyinkoodii ku laabtaan ayaa waxaa kaxaystay oo dhan kale wax ka tusay hal rijminti oo liyu boolis ah kuwaasoo ka dhiidhiyay darxumada ciidamada lagu hayo iyo dulliga shacabkooda dulsaarka ku ah. waxaana loo xaqiijiyey inay ciidankan goostay xukuumaddu la hadashay iyadoo ay ugu horeeyaan Mustafa Cagjar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida, taliyaha liyuga Maxamed Xaaji Tuur iyo hoggaanka nabadgelyada Xuseen Qaasim oo dhammaantoodba hal qoys ka soo jeeda. laakiin ciidanku way diideen oo dhag jalaq umay siinin. welina waxay ku sugan yihiin duurka Garigo'an oo ay go'aamo culus ku kala qaadanayaan. xukuumadda Mustafa Cagjar ayaa u muuqata mid dhinac walba ka duntay kadib markay kalsoonidii shacabka lumisay oo ay qabyaalad, kala qaybin iyo mixnad aan horay uga jirin deegaanka la timid, kuna kacday musuq, eex, xadhig, jirdil, hanjabaad, kala qoqob bulsho, colaado qabiil, kuwa qowmiyado kale, qax iyo barakicin iyo dayac iyo darxumayn ciidan. haddaba waxaan ku boorinaynaa dhammaan ciidamada deegaanka inay ku daydaan ciidanka liyuga iyo maleeshiyada isbahaystay ee Garigo'an ku tashanaya oo ay ku biiraan si ay maanta dulmiga lagu hayo shacabkooda uga dulqaadaan sidii ay hadda ka horba uga dulqaadeen oo kale, maadaama oo ay qoryaha u sitaan badbaadinta shacabkooda iyo ilaalinta deegaanka. xiisad cusub ayaa ka soo cusboonaatay murankii buuxinta biyo xidheenka weyn ee Itoobiya kadib markii Itoobiya xalay ku wargelisay dalka Masar inay bilowday buuxinta wejiga labaad ee biyo xidheenka. dalka Masar oo arrintan war-saxaafadeed ka soo saaray ayaa sheegay in buuxinta wejiga labaad ee biyo xidheenka Itoobiya ay uga sii dari doonto xaaladda iyo xiisadda gobolka.
iyo weliba gaar ahaan xiriirka labada dal. waxayna Qaahira intaas raacisay in arrintaasi ay abuuri doonto xaalad khatar gelinaysa amniga iyo xasiloonida gobolka, iyagoo maamulka Itoobiya ka arrimiya haatan ku tilmaamay inay maleegayaan inuu dagaal ka dhex qarxo wadamada bahwadaagta ku ah webiga Niil. dhanka kale, Suudaan oo iyaduna ka hadashay buuxinta wejiga labaad ee biyo xidheenka Itoobiya ayaa cambaarayn culus u soo jeedisay maamulka Addis Ababa. haddaba maamulka Abiy ayaa u eg inay cadaadiska caalamka ka haysay fashilkii dagaalka waqooyi rabto inay shacabka Itoobiya ee quusadka taagan ku kaboojiso dagaal cusub oo ay hadda la gasho Masar si ay isaga dejiso culeysyada dhan walba ah ee soo wajahay. balse khubrada arrimaha siyaasadda ee geeska ka faallooda ayaa tibaaxaya inay Itoobiya uga sii dari doonto haddii ay wajahdo dagaal waddan kale, iyagoo u sababeeyey inay Itoobiya awood ciidan iyo mid dhaqaalaba maanta wiiqantay, oo haddii ay wajahdo inay la dagaalanto Masar ama Suudaan in baqinba lagu durdurin doono.